السلام عليكم. الدين معاملة تاسو لولا jeedo in diinta udub dhaxaadkeeda iyo tiirkeedu yahay habka aan la dhaqano dadka diinteena heerka ay gaarsiisan tahay iyo wanaageeda waxaan ka qeexan karnaa habka aan dadka noo dhow iyo dadka aan noo dhaweyn naga fog aan la dhaqano ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka muuminiinta wuxuu ku tilmaamay inay ruhamaa baynahum yihiin dadka isku naxariista nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhigayaa qawaacid buu dhigayaa iyo wuxuu dhigayaa shuruuc qeexaya sidii dadka muslimiinta iyo muuminiintu isku dhaqmi lahaayeen tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa walaalka inaad wajiga u dhool cadeysid oo wajiga u furtid waa sadaqad weeyaan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam leeyahay الكلمة الطيبة صدقة إرجع وناكسن في عن ولالك عاد كتير وصدقة ويان وكان إلهي سبحانه وتعالى والنبي كله لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك هذا أهل لهيد نبي محمد من التهيدة أفق اللفسن وأد أضرق وكاد رير الله عندك كان قوة ريرسن مركا وحويان قواعدها صورهم وحلو ما يش الله كانه إن الراعه inaan dadka bini aadamka wajigan u furfurno markaan guryaheena ka baxayno oo suuqa tagayno goobaha shaqada tagayno iskoolada tagayno in aan go'aansano in qof kastoon aragno inaan wajigeena u furno inaan erey wanaagsan aan ku dhadhaano South Africaanku waxay leeyihiin oraah la yiraahdo ubuntu macnaheedu waxa weeyaan si aan bini aadamnimadayda u dareemo waanad aduguna bini aadamnimo ay tustaa taasoo macnaheedu tahay in waxa weeyaan dadku haday bini aadamnimo isku la dhaqmaan in adduunka dhan uu noqon lahaa meel wanaagsan waxa laga sheekeeyaa Abu Yazid al-Bustani nin la oran jiray ayaa wuxuu ku jiray xamaamaat al-aama meelahan la yiraahdo musqulahan lagu qubaysto ama lagu meedho ee banaanada ku yaala suuqyada ku yaala dharkiisi ayuu gudaar suray isagoo markaa ku jira suuligii baa nin tuugayay dharkiisi baa intuu qaaday ayuu la cararay أبو يزيد البستاني مرة ماشى تالي أنتو قشري أيو كذب عرّي نكى توجه سيدي اللي سكو إريني السوقة أيا مركي دم أبو يزيد البستاني نكى مجارو وقبته مركسو إري بكوري وحكوري ولا الكيو همودين إن عن كاسو دب إريني مان تردن إن عن كقبته كعقابه أما عن وحكها قاطه لكن وحن كو إريني waxaan ka baqanay maalinta yawmal qiyaamaha narkan yar ee macnaha badan ku fadheen in lagu qoro dambi oo maalinta qiyaamaha ahmaashaada hoos ay u degto waxaan rabaa walaal inaad ku qaadatid iyagoo xalaal ah adigan ku siiyo qof bini aadam ayaa wuxuu kula dhaqmay fal xun adigina waxaad ugu bedeshay fal wanaagsan message baad gaarsiisay qofkaas bini aadamka ah sidiisa ma ahaanayo isbedel baa qalbigiisa ku dhacaya waxa laga sheekeeyay Abdulmalik ibn Marwan ninkii khaliifadii Amawiga ahaa in maalin kamid ah isagoo cunto u fadhiya nin kamid ah shaqaalihiisii khaadim buu ahaa qolo bariyii hore dadkii adoomada ahaa ee la haysan jiray in isagoo markaa maraq sida maraqii qayb ay kaga daateen dharkii khaliifada u xanaaqay markaas ninkan khaadimka ah markuu arkay xanaaqii ninkii boqorka ahaa ayaa wuxuu xasuusiyay sifooyinka qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay qofka mu'minka ah ee muslimka ah markaas wuxuu ku yiri boqorow wal kaadimiina al-ghayba kuwa xanaaqooda kontarola markaas wuxuu yiri kadamtu ghaybi xanaaqaygi waan aamusi waan kontarolay markaas uu raaciyay wal aafina aan الناس iyo dadka cafiya markaas wuxuu ku yiri afawtu anka وأنكو عفيه مركزوري والله يحب المحسنين إلهي سبحانه وتعالى وحج عليها دتك محسنين تا دتك إحسانك وقبته دتك كلا مركزوري اذهب فأنت حر لوجه الله أرد سكبح حر بعتها لوجه الله ما أنت كذب الضون ما هذا حر بعتها دتك ابن آدمك حمان هذين غصوا ميان وأنا سوفي عن ورد غنا دتك ابن آدمك أنا لا شقية سكولا ذا نلا دكتة قوليها أنا لا تشوفنا وإنان كولا دقنا سيدا ugu haboon sida nabiga sallallahu alayhi wasallam ku qeexan sunnadiisa iyo ahadiistaas iyo aayadahaas quraanka ku qeexan inaan wada dhaqano wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh